Inta aynu muuqaalkeena gudagelin waa ku xasuusinayaa inaad channelka kusoo biirto oo subscribe saarto fiidiyowgan like saar mahadsanid. Qaybteenii sidaad waxay ku bilaabanaysaa taay oo saqafka sare lagu hiray. Dhanka kale maami ayaa qadada sameynaysa, waxay maqshay qaylada taay markaasay soo degdegday si ay u aragto wax meesha ka jiro. Markaasay aragtay taay oo saqafka sare ku dhegan, markaas bay u qaylisay walaalkeeda si uu badbaadiyo taay, balse waxa uu si fudud u eegay saacadiisa una sheegaysa in la gaaray waqtigii dhammaantood ka soo baxeen guriga. Laakiin ka hor intaysan bamka ku dhicin guriga bay ka soo boodeen, wuuna sharaxayaa in guriga lagu hiray dam habeen hore. Waxa uu ballan qaaday inuu wax badan u shari doono, balse waxa uu sheegayaa inuu maskaxdiisa ka helay hal shay oo kaliya, kaas oo ah hadafka ugu weyn uu leeyahay waa inuu ilaaliyaa mar kasta maami. Waxa uu sheegayaa inay gudaha u galaan gaariga halka ay maami ka caawisay inuu gaariga fuulo. Waxa uu la hadlayaa gacan ku-dhiiglaha Shinzo. Maami iyo Tae aad ayay ugu jahwareersan yihiin, balse waxa uu ugu jawaabay in warku si degdeg ah u faafay noloshooda, warka ku saabsan guurka. Si kastaba ha ahaatee, Tae waxa uu weydiiyay sababta ay u beegsanayaan Masmi. Dong waxa uu ku jawaabay jawaabtu waa mid aad u fudud oo uu ka dacwoonayaa in Masmi uu yahay odayga tobnaad ee qoyska Yakri. Waxa uu ku dheeraaday taariikh nololeedka qoyskooda. Waxa uu leeyahay awood, taas oo siinaysa qoyska Yakri awood ka sareysa sida uu qabo jiil walba mid ka mid ah carruurta. Yakri ayaa ku dhasha iyagoo aan lahayn awood ka baxsan bani'aadamka, kuwaas oo taariikh ahaan weligood ahaa madaxda qoyska. Wuxuu ku dacwoonayaa in kastoo uu madax aan lahayn wax awood dabiici ah, ay yihiin kuwa kaliya ee dhali kara carruur leh karti ka sareyso bani'aadamka, taas oo micnaheedu waa in madax la'aanteedu ay tahay mid aad u sareyso oo ay si fudud uga go'i doonaan dadka kale. Hogaamiyihii reerka ee halaash ahaa iyo qofka kaliya ee dhiigooda ilaashanaya ayaa ku fiicnaa maami inuu guursado, laakiin waxa uu ka carooday in gabadhooda uu guursaday Tae, maadaama ay reerkoodu aad u daaweyn yihiin oo aan yihiin way haystaan odow badan oo doonaya inay tirtiraan qoyska Yakri. Sida ugu wanaagsan ee loo samayn karana waa in laga takhaluso Masmi. Iyagoo hadalkan ku hadlayo ayaa gaari u soo dhowaaday oo uu darawalku ku soo riday gaarigii ay saarnaayeen Tae, Dong iyo maami. Laakiin aad buu u cabsaday Tae, laakiin Dong waxa uu sheegay inuusan welwelin halka ay gaarigooda lagu toogtay qoryo badan oo gandaal ah. Wuxuuna u sheegay inuusan welwelin maadaama gaarigu uusan habad karin. Wuxuuna u sheegayaa darawalka inuu aad u dheereeyo odowgoodii oo la soo baxay qori xoog leh oo uu rasaas ku furay Dong isagoo si degan u cabayo shaah. Maami ayaa u sheegaysa Tae inuusan ka welwelin sida ay eegoodu ugu wanaagsan ugu soo baxay. Dhanka kale gandaal ayaa ku soo daatay oo uu aad u sareeyo. Dong wuu hanaaqay wuxuuna fuulay saqafka sare ee gaariga isagoo u isticmaalaya fiilooyinka si uu u hiro dhammaan rasaasta, halka ninkii gandaalka uu watay ku dhuftay gandaal kale oo si fudud u burburiyay fiilooyinka, halka Dong uu isticmaalay awoodiisii uuna qarxiyay gaariga. Kadib gudaha ayuu ku soo noqday sidii iyadoo aanan waxba dhicin. Waxa uu sheegay inuu si fiican u guursado maami wax kasta oo noqotaba. Waxa uu gacanta u geliyay qori oo uu sheegaya inuu dilo qof kasta oo ka shakiyo, waxaana uu tusay barta Twitter-ka ee qofka bamka ku dhejiyay gurigiisa. Sida la sheegay waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ugu khatarta badan ee wax qariya. Laakiin hal cillad ayaa jirto, cilladaas oo ah inuu la qabsaday baraha bulshada oo asal ahaan u soo bandhigi jiray qorshihiisa, noloshiisa iyo naftiisa. Wuxuu u sheegayaa Tae inuu ka qayb qaato shaqaha maalinlaha ah xitaa haddii ay tahay inuu dilo asiga oo kale. Intii lagu guda jiray xilligii baashaalka, waxa uu taleefankiisa ku soo dhacay ogeysiis laga helay markii ninkii bamkii tuuray oo uu ku soo qoray in bamkii labaad la dhigay. Markiiba wuu eegay hareerihiisa
indhihiisa oo uu arkay nin dhex wareegaya dariiqa, sidaa darteed wuxuu isla markiiba u sii gudbay gudaha qolkii bukaanka, halkaasoo kalkaalisada weydiisay inuu wax rabo. Si fudud ayuu dib ugu soo laabtay fasalka, wuxuuna eegayaa Maami intii lagu jiray xilligii qadada. Markii ay si lama filaan ah ula hadlaysa saaxiibadeeda, isagoo si qoto dheer u fikirayo, ayaa 3 qof saaxiibo ah bay u soo dhowaadeen oo u soo bandhigeen shukulaato, taasoo la yaabeen inuu si degdeg ah uga qaaday oo uunay, taasoo aad uga nihisay. Markii ay weydiiyeen waxa uu ku dhahay isaga waxaanu xitaa la hadlin ka hor inta uusan Tay si buuxda u ilaaway welwelkii bulshada ku dhex qabay, balse waxaa dib u soo gashay oo uu midoobaaday inuu hurdada ka toosay iyo in kale oo uu kacay inuu miyir qabo. Waxa uu ka fikirayaa sida ay u qurux badan tahay oo uu weydiiyey inay hubto inuu yahay qofka ku habboon isaga, iyada oo ku andacoonayso in xitaa kadib markii ay saaxiibo ahaayeen weligiisa ka warqabin qoyskeeda ama xaqiiqda oo ah sidii ay u noolaan lahayd maalin kasta. Dhanka kale, Tay waxa uu sheegayaa inuu asigu wax ka qaldan yahay ama haddii uu guursaday qoys wax ka qaldan gabadhooda. Runtii way doonaysaa inuu si lama filaan ah u guursado. Si kastaba ha ahaatee, meel saqafka ka mid ah qolka ku dhow ayaa bam ku qarxay, jug weyn oo burburisay wax kasta.